إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. nabadgelyada naxariista iyo nimcooyinka ee baxaydin ahaadeen daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkan oo aynu ku eegi doonno dhalashadii waayihii horumarka iyo burburkii cismaaniyadii hore iyo waayaha cismaaniyada cusub ee Rajab Tayyip Erdogan hogaaminayo. inta aynu barnaamijka ku jirno waxaynu mar kasta isdul taagi doonaa horumarada kala duwan isbedelada inagoo isbarbardhig ballaaran ku samayn doona labada cismaaniyo. waxay ahayd 1923 taariikhda miilaadiga xilligii laga takhalusay boqortooyadii afka Britishka loogu yeedhi jiray Ottoman Empire, sidoo kalena loo garan og yahay sandaladii Turkiga amase Cismaaniyiintii Turkiga. waa boqortooyo islaamiyatii ugu weyneed ee wakhtiga dunida noqonaysayna midii ugu dhulbaaxadeedka ballaadhnayd taasoo gacanta ku haysay koonfur bari Yurub inta ugu badan qaaradda Aasiya galbeedka iyo weliba geeska Afrika. asal ahaan waxay awood yeelatay qarnigii 13aad iyadoo ku awoodeysatay deegaano ka mid ah waqooyi galbeed waddanka maanta Turkiga loo yaqaano. sanadkii 1258 markii uu dhintay suldaankii halkaas xukumayay ayaa Suldaan Cismaan loo doortay inuu noqdo hogaamiye, taasina waxa ay horseeday dowladdii Cismaaniyiinta. waxa uu Suldaan Cismaan samaystay dowlad adag, ciidan aad u awood badan oo waxa uu baabiiyey oo gacanta ku dhigay dowladdii Greega. kadib dowladdiisii waxa ay gaadhay dhul aad u ballaaran sida qaaradaha Yurub, Aasiya, Afrika oo ay ka mid tahay xeebta dheer ee Soomaalidu degan tahay. Cismaaniyiintu waxay islaamka gaadhsiiyeen bartamaha qaaradda Yurub. waxay ahayd aabbaha ilbaxnimo qarniyo dhowra oo xitaa dowladaha reer Yurub keentay inay aqoon iyo farsamaba u daba fadhiistaan. dhalinyarada reer Yurub ee ka dhashay qoysaska madaxda amase maalqabeennada ayaa waxbarasho u soo doonan jiray jaamacadihii ay boqortooyadu ku lahayd dhulweynaha koonfur bari Yurub, taasoo muujinaysa heerka waxbarasho ee ay boqortooyadu gaadhay. ilaa wakhtigan waxaa magaalooyinkii ay boqortooyadu ka talinaysay ka taagan dhismayaal u badan masaajido oo dadka qarniga noole xitaa aysan rumaysan karin in qarniyo ka hor dhisma sidan u bilicsan dunida laga bineeyey iyadoo aan la haysan aaladaha wax dhisa ee ibni aadamka wakhtigani u adeegsado. heshiis ay kala saxeexdeen labada boqortooyo ee Cismaaniyiinta iyo Ruushka 1188 taariikhda hijriyada kuna beegan 1774 taariikhda miilaadiga ayaa dhigayay inay xaq u leedahay boqortooyada Cismaaniyiintu mas'uulna ka tahay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka hoos yimaada imaaradda Ruushka. sidoo kale midmadowgelinta jiritaanka ee ay geliyeen mid ka mid ah boqortooyadii ugu awoodda badnayd wakhtiga laguna magacaabi jiray Hungary Empire ayaa ku muujinaya awooddii ay lahayd dowladdii Cismaaniyiintu. hase yeeshee qarnigii 19aad waxaa soo shaacbaxday awood darro ku soo bilaabantay boqortooyadii Cismaaniyiinta iyadoo dhul badan oo ay ka talin jirtay dowladaha reer Yurub qabsadeen gaar ahaan bartamaha iyo bariga qaaradda Yurub. Suldaan Cabdixamiid oo ahaa suldaanka xilligaas ayaa ku guuleystay inuu dowladdiisa ku soo diro Serbia iyo Montenegro oo ah laba waddan oo ku yaala bartamaha qaaradda Yurub. arrimahaas waxa ay keeneen inay cadhoodaan dowladaha reer galbeedka iyo boqortooyadii Ruushka, waxa ayna dagaal qadhaadh la galeen dowladdii Cismaaniyiinta. iskaashaanbuuraysiga dowladaha reer galbeedka iyo Ruushku waxa ay ku qasabtay dowladdii Cismaaniyiinta inay iyaduna garab ka dhex raadiso dowladdii xilligaas jiray, waxaana ay xidhiidh dhow la yeelatay dowladdii Jarmalka iyadoo xilligaas goobo badan cidhiidhi laga geliyey dowladda Cismaaniyiinta kadib markii Masar Ingiriisku qabsaday, Faransiisku Tunuusiya qabsaday, kacdoonnana ay ka dhaceen wadamada Armenia iyo jasiiradda Crete. arrimahaas oo dhammi waxa ay keeneen in labada dowladood ee Jarmalka iyo Cismaaniyiintu ay yeeshaan xidhiidh dhow.
inkasta oo suldaan cabdixamiid sameeyey arrimo u badan horumar sida hirgelinta jaamacado isgaadhsiin casri ah ciidamada oo uu dib u habeen ku sameeyey, haddana arrimahaas oo dhammi umay suuro gelin inay wax ka fududayso culaysyadii boqortooyada haystay. waxaa qarxay dagaalkii labaad ee dunida taariikhda miilaadigu markii ay ahayd 1914. dagaalkaas oo ay isku wajaheen laba xulafo oo barbilowgoodu ka bilaabmay dowladaha reer Yurub kala hogaaminayeen dowladaha Jarmalka, Ingiriiska iyo dowladda Faransiiska. boqortooyadii wakhtigaas islaamiga ahayd ee Cismaaniyiintu waxay markiiba garab ka saartay dhanka dowladda Jarmalka oo ay isku xulafo ahaayeen, iyadoo markiiba weerar ku qaaday boqortooyadii Ruushka. dagaalku socdaba waxaa laga gacan sarreeyay xulafadii Central Powers-ka ee Jarmalka iyo Cismaaniyiintu hogaaminayeen 1918 taariikhda miilaadiga. waxaa la qabsaday Jarmalka, Turkiga iyo dowladihii la jiray gebi ahaanba. halgan dheer oo ay Turkidu u gashay inay dib u hesho xorriyaddooda ayaa keentay qabsoomidda heshiiskii la magac baxay Lausanne, kaasoo dhacay 1923. wadagaleena dawalkii guulaystay dagaalkii koowaad ee dunida iyo madaxweynaha qowmiyaddii Turkiga Maxamed Kemal Atatürk. heshiiskan oo u muuqday mid quursi badani ka muuqdo wadagaleena nin laga guulaystay iyo mid guulaystay ayaa dhigayay in dhulka ballaadhan ee ay boqortooyadu ka taliso ay gebi ahaanba ka tanaasusho, isla markaasna ay keli iyo khaasba ku ahaato dhulka ay ku nool yihiin qowmiyadda Turkida oo keliya. masaafurinta qoyska boqortooyada iyo in la soo wareejiyo hantida boqortooyadii Cismaaniyiinta, in Turkigu aysan samaysan karin shidaal baadhis muddo 100 sannadooda, in loo aqoonsado marinbiyoodka baasfoorka marinbiyood caalamiya, in dowladda Turkigu sharciga ay raacaysaa noqdo sharciga cilmaaniyadda loo yaqaan, kaasoo dhigaya in dowladda iyo diinta la kala saaro. waxaa dowladdii mar ahaan jirtay quwad dunida heer sare ka ahayd, calankeeda aan cadceedu ka dhici jirin ee qaarad ka ruxmi jiray madow iyo caddaanna la wada hoos fadhiyi jiray, isu beddeshay dowlad daciifa oo xitaa aan awoodin inay isku filnaansho dhaqaale samayso, taasoo keentay in ay ku tiirsanaato caawimada duwalka reer galbeedka iyo deynta baanka adduunka. waxaana taas ka dhashay in dad badan oo Turki ah ay noloshu ku adkaato, qutal daruurigu cidhiidhi ku noqdo oo ay ka hayaamaan Turkiga iyagoo u sii jeeda dhanka dowladaha kale ee reer Yurub. dhinaca diinta oo ay boqortooyadu halkudhig u ahaan jirtay, waxaa la mamnuucay barashada qur-aanka, ku tukashada masaajidada oo isticmaalka eedaanka afka luqadda Carabiga. Allahu akbar, Allahu akbar. ku labisashada khamiiska iyo jalbiibka amase xijaabka. dhalashada Cismaaniyadda cusub ayaa la kowsatay kadib markii dalkaas uu manjaraha u qabtay Rajab Tayyip Erdogan oo ay halkudhig u tahay qorshaha Cismaaniya cusub iyo in Turkigu halkii uu dunida kaga jiray wakhti ku soo laabto. waxaase jira oo aan marnaba la hilmaami karin in Turkigu sameeyey horumar ballaadhan oo dhaqaale iyo korukac miisaaniyadeed oo aan suuragal ka noqonin xataa dowladaha reer galbeedka. taasna waxaa kuu muujinaya liiska dhaqaalaha oo ay kaga jireen kaalinta 111
11aad ayay muddo kooban ku soo gaadheen kaalinta 16aad. hoos u dhaca sixir bararka oo markii hore marayay 30% haddase maraya 5%, iyo kor u kaca dakhliga sanadlaha ah ee soo gala qof kasta oo muwaadina oo hore u ahaa $2,000 haddana maraya $11,000 lana filayo 2023 inuu gaadho $30,000. kaabayaasha dhaqaalaha qaranka ayaa xoog u kordhaya isaga oo malaayiin dollar ku maalgeliyay dhismayaasha wadooyinka, madaarada, dekadaha iyo khadadka tareenada dheereeya. dhaqaalaha dowladda ayaa ajando looga dhigay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada iyo caafimaadka oo ah halka ay bulsha ku horumarto, iyadoo Erdogan sanad keliya hirgeliyay in ka badan 500 oo cisbitaal iyo 170,000 oo fasal. shaqo la'aanta oo ah masiibo haleesha dhalinyarada ayaa gaadhay 32%, waxaana Erdogan u suura gashay inuu gaadhsiiyo 2% oo keliya. dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ayaa Turkigu noqday mid si degdeg ah uga soo muray dunida oo dhan, waxaana isagoo buddhig uga dhigay qorshihiisa Cismaaniyada cusub. Turkigu noqday mid furfuran, saameyn aad u weyn ku leh duwalka Islaamka. waxaa markii ugu horeysay Turkigu saldhigyo ciidan ka samaystay goobo ka baxsan dalka Turkiga sida Soomaaliya, Suuriya iyo dowladda Qatar. samaysashada ciidan awood iyo tayaba leh ayaa ku xidhan helidda hub casri ah. Turkiga cusubna waxa uu samaystay hub iyo saanad ciidan oo ciidan qalab sidaa u baahan yahay, xitaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana markii ugu horeysay hubka uu soo dhoofistaa ka batay kan loo soo dhoofiyo, iyagoo ku biiray liiska 10 dal ee ugu hub iibinta badan dunida oo dhan, kaas oo ay horkacayaal ka yihiin duwalka Maraykanka iyo Ruushka. waxyaabaha isbarbar socda ayaa suuragal ka dhigay in Erdogan-ka manjaraha uu qabtay dowladda Turkigu uu jabiyay qodobo dhowra oo uu dhigayay heshiiskii Lausanne. wuxuu sameeyay shidaal baadhis badda cad, inkasta oo uusan ahayn mid buuran, kusoo rogidda cashuur marinbiyoodka Bosfor, inkasta oo aysan ahayn mid aad u awood badan, iyo qodidda kanaalo cusub. 2023 ayay ku beegan tahay wakhtiga uu dhammaanayo heshiiskii Lausanne, kaas oo ay wada galeen Ataturkii Turkiga hogaaminayay, waxaana wakhtiga Turkiga ka jabi doona silsilad iyo dabarro lagu xidhay si uusan u horumarinin. Turkiga ayaa 100 sano jirsan doona, awooddiisa ayaana labanlaami doonta 100% iyadoo ay jabayaan dhammaan qodobada heshiiska Lausanne. Turkiga ayaa la soo baxaya shidaal aad u badan, ku soo rogaya cashuur inta uu doono ah, marinbiyood muhiim u ah isku xidhka dowladaha Yurub iyo dunida inteeda kale, iyo dowladda Turkiga oo ka baxaysa qaabka cilmaaniyadda go'aansan doonta qaabka ay noqon doonto. ma sahlana arrimahaas in ay dowladaha reer galbeedku raalli ka noqdaan, waxaana fashilmay inqilaab ay soo abaabuleen oo loo adeegsaday ciidamada qalabka sida. intii ka dambaysayna Turkigu waxa uu wajahay cadaadis aad u daran oo ah mid dhaqaale iyo weliba mid siyaasadeed. waxaase su'aasha isweydiinta mudane ay tahay Erdogan ma ku guulaysan doonaa hindisihiisa Cismaaniyada cusub? Turkigu ma heli doonaa sumcad iyo sharaf uu dunida ku lahaan jiray 100 sannadood ka hor?